Gabadhu asturnaanta ayay ku sharaf badan tahay. Wiil ayaa gabar hasaawe ama shukaansi loo samaynayo. Sawirro qurxoon iyo riyo macaan ayuu aad iskugu milayaa. Maalmo markii la wada socdo ayuu jacayl u soo bandhiganayaa. Way ka aqbalaysaa. Wiil daacad ah waaye ayay is oranaysaa. Maalmo ayuu kasbashadeeda siinayaa. Kadib haddii aad jeceshahay sawirro aan niyadda ku qaboojiso isoo dir ayuu leeyahay. Hadday u soo dirto godkii way ku dhacday gabadhii. Maalmo kadib imo ayuu leeyahay aan waqti isla qaadane. Gabadhi iyadoo tixgelinaysa ayay ka aqbalaysaa. Way baxaysaa, gurigiisa ayay ugu tagaysaa. Markii albaabka hoos laga soo xiro ayuu wuxuu bilaabayaa xodxodasho iyo inuu gacmaha ka hadlo. Way iska caabinaysaa. Wuu isku xanaajinayaa. Waayahay iyo ima jeclid ayuu oranayaa. Haddaad jeceshahay iskama aadan ka celiseen. Way qalbi jilcaysaa. Meeshaas ayuu ka howl bilaabayaa. Gabadhiina ku ciyaaraya. Sawirro aan shaxumahana ka qaadaya. Meeshaas ayay gabadhii ku galaysaa kadeed nololeed iyo gumaysi xogta laga hayo awgeed. Ayaan kadib gabadhii waa dhibana la farxumeeyay ama rikaato lagu haysto. Way soo noqnoqotay arrintaas in badan. Waxaa gabdhaha xusuusin lahaa fariimo yar. Balse muuqaalka intaan bilaan waxaan kaa codsanayaa channelka haddii aad ku cusub tahay in aad subscribe inoo saarto. Sidoo kale video like noo saar si uu u gaaro saaxiibo badan. Midka koowaad waxay tahay walaal ama abaayo sawir ay cawradaada qaawan tahay qofna ha u dirin. Sawir xasuus warkiisa meel iska dhig. Xaaskiisa ma tihid. 2 wiil islaamid hala kaliyoobin yuusan kaaga faa'iideysan cidlada. Shaydaanna waa shaqo tag. 3 nin islaamid gurigiisa ha isku aadin. Diidmada waa u sharaf gabadha. Wixii aan kugu qalmin maya dheh. Nin mustaqbalka raba kuguma nacayo waan ku hubaa. Ogow maalintaad u tagto ayaad agtiisa ka dhimatay oo ka qiimo beeshay. 4 ima jeclid haddii uu ku dhaho u sheeg in aad jeceshahay oo aad mustaqbal ka rabto laakiin jacayl dartiis aadan Allah subxaanahu wa ta'ala ugu casi karin. Hadduu ku rabana wadada guurka inuu soo maro u sheeg. 5 gabadhu asturnaanta ayay ku sharaf badan tahay. Haddii maryo jilicsan oo jirkeeda soo bandhigaya banaanka ku aado raggii mustaqbal ka rabay way ka jeesanayaan. Kuwii fadarada ahaa ayaa soo raacraacaya. Kuwa wax qaribana waa kuwaas. Marka hantidaada qarso aad qiimo yeelatid oo dadka qiimaha leh soo jiidatid. Ugu dambeyn wiilasha waxaan kula talinayaa in ay aakhiro xasuustaan gabdhahan ula dhaqmaan sidii ay jeclaan lahaayeen in loola dhaqmo walaashood. Inta ay yar yihiinna guursadaan si ay macaasida uga dhowrsadaan. Xaq Allahna waafajiyo dhammaanteen. Ceebteena Allah asturo. Fadlan walaal adiga oo mahadsan share dheh oo gaarsii walaalaha kale.